marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan shacabkayga Soomaaliyeed ee ii taagnaa sida fiican ii soo dhaweeyay sida quruxda badan ii soo dhaweeyay waxaan idin leeyahay aad bad mahadsantihiin marka labaad waxaan rabaa inaan idin dhaho shucuurteeda ma laga sheekayn karo oo markii ugu horeysay intaan fanka ku biiray aan ku soo laabtay waddankaygii waa markii ugu horeysay aan imaado caasimadeena Muqdisho aad baan ugu faraxsanahay sida quruxda badan leh qaayaha badan leh oo maxaa la dhahayay aan shacabkayga ii soo dhaweeyeen ii hortaagan yihiin waxaan fanaan u ahay waa idinka oo maxaa la dhahayay fanaanimadayda halkaa gaadhsiiyey baan dhihi karaa marka aad baad mahadsantihiin dhammaantiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan TV-yada dhammaan madaxdeena kooxda dhaantada sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalkay Cabdifitaax Shaawi oo si qurux badan la iigu soo dhaweeyay magaaladan la'aantiisna aysan dhacdeen showgan insha Allah waxaan idin leeyahay waa inoo 20 bisha iyo showga hadii la haydmo waana wada joognaa marka hore waxaan soo dhaweynaynaa fanaanada qaranka Soomaaliyeed walaasheen King Jaamac oo maanta timid walaasheen King Jaamac oo maanta magaalada Muqdisho timid waxay timid magaaladeedii waxay timid caasimadeedii waxay u timid shacabkeedii waxay u timid dawladeedii waxay u timid dadkeedii waxaan leenahay King Jaamac soo dhaw aad baan ugu faraxsanahay inaad halkan timaado magaaladaada cid ka leh ma jirto cid ka hortaagan ma jirto dadkaagii iyo dalkaagii baad u timid waxaad tahay qof Soomaali ah fanaanad Soomaaliyeed waxa garbahaaga taagan waa gudoomiyaha degmada Warta Nabadda gudoomiyaha degmada Hodan maareeyay tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed agaasimihii xafiiska duqa magaalada kooxdii dhaantada ee degmada Warta Nabadda waa bari Hodan yaqshid oo gabdhihii calanka ay yimaadeen gudoomiye Cantoobo oo waqti badan geliyay maanta in intaan isku timaado dhammaan waxaan ku leenahay gacmo furan iyo niyad saafiya ku soo dhawow shacabweynaha Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay inay soo dhaweeyaan fanaanada qaranka Soomaaliyeed kulligii waxaan leeyahay waad mahadsantiin King Jaamac waxaan leeyahay walaalay soo dhawow anoo ku hadlayna magaca fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed joognana tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed waxaan ku leenahay ku soo dhawow gacmo furan iyo magaaladaadii shacabkaaga oo ku jecel